الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد القادر الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إلهي بام الله سبحانه وتعالى ولا ليال isugu keenay oo inuu jamciyo xafladan mubarakada ee qiimaha badan. Ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa isu imaatinkeena iyo camalkeena inuu ikhlaas ka dhigo, inuu guna dambi dhaafo nabiga miciisana inaga yeelo alayhi salatu wa salaam. Ilaahi baa mahad subhanahu wa ta'ala waxaan isugu nimaadnay waa xusida aan xusayna dhalashada nabigeena suuban alayhi salatu wa salaam, inagoo Ilaahi ugu dhawaanayna subhanahu wa ta'ala farxada aan ku faraxsanahay dhalashada nabigeena suuban alayhi salatu wa salaam iyo amaantaan amaanayna iyo salliga lagu sallinaya nabiga alayhi salatu wa salaam. walaalayaal waxa la inooga baahan yahay Ilaahi subhanahu wa ta'ala maadaama inoo soo diray rasuul ku tilmaamay alayhi salatu wa salaam uu ku tilmaamay rahmad, wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. rasuulku waa rahmad adduunka loo soo diray midii u weynayd way. Ilaahi baa ku tilmaamay rahmad subhanahu wa ta'ala. rahmadaas marka inaan weynayna inaan ku faraxno inaan qadarina waa xaqa oo inagu leeyahay suubanaha alayhi salatu wa salaam. waxa la inooga baahan yahay inaan raacno nabiga wadadiisa alayhi salatu wa salaam, maadaama oo nabiga alayhi salatu wa salaam uu yahay kii Ilaahi uu soo diray bashariyada ama bini'aadamka inuu badbaadiyo oo naar ka badbaadiyo isaga sababkiisa inaanu raacno wadadiisa oo aan sunnadiisa raacno ayaa la inooga baahan yahay. maxabad dhab ah inaan jeclaanaan la inooga baahan yahay, waana mid aan ku badbaadayno aakhiri iyo adduunba. nabiga maxabadiisa alayhi salatu wa salaam waa waajib, in la jeclaado waa waajib. mar haddii qofka la jeclaado maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay wadadiisa in la raaco, sheegiisa in la badiyo. Ilaahi baa dikrigiisa kor yeelay, in salligiisa la badiyo, in la amaano, in wadadiisana si dhab ah loo raaco. waxyaabaha uu inoo la yimaaday waa inaanu raacno si toosa, waxa uu inaga reebayna waa inaanu ka tagno, aanu ka dheeraano. Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subhanahu wa ta'ala inuu ina soo waafajiyo xafladan aadka iyo aadka u qurux badan oo u qiimo badan oo aan ku muujinayna maxabada iyada. waxaan isu dardaarmaynaa naftayda iyo naftiinaba aan u dardaarmayaa maxabada nabiga alayhi salatu wa salaam. waxa xaqiiqa oo Ilaahi uu og yahay subhanahu wa ta'ala qof nabiyullaahi Muhammad maxabadiisa aysan qalbigiisa ku jirin Ilaahi agtiisa koob shaah inuu ka helaynin. hal xabo inta in la Ilaahi agtiisa ka heli maayo qof aan nabiga jeclaanin alayhi salatu wa salaam. waxa marka waajib inagu ah maxabada inaan ka rumayno, aan wadadiisa raacno. ilaa waa qudwa xasana buu Ilaahi ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala, uswa xasana. marka waa inaanu nabiga wadadiisa raacno alayhi salatu wa salaam, salligiisa iyo amaantiisana aanu badinna. marka iyada waxaan isu dardaarmaynaa walaalnimada iyo ukhuwada. dadka muuminiinta waxa la rabaa inay walaalo ahaadaan, inay iskaalmeeyaan, inay nabigooda ku daydaan alayhi salatu wa salaam. xagga deeqsinimada ay kaga daydaan, xagga amaanada iyo runta ay kaga daydaan, xishoodka ay kaga daydaan, iskaalmaynta iyo iscaawinta ay kaga daydaan. waxaan ognahay xilli adag baa lagu jiraa, dad fara badan oo baahan baa jira. waa inaan sadaqada badinno, farxadda aanu nabiga dhalashadiisa ku faraxsannahay awgeed inaanu sadaqada u badinno baa loo baahan yahay. inaanu walaalowno oo aan isjeclaanno baa loo baahan yahay. wuxuu leeyahay nabigeenu alayhi salatu wa salaam: wallahi la tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. janna ma gelaysaan ilaa iimaan laydinka helo, iimaanna ma laydinka helay ilaa iska jeclaataan. ma idin tusiyaabu yidhi shay markaa samaysaan aad jeclaanaysaan, shaygaas waxa weeye inaad salaamta faafisaan. innaga iyo kuwa kale walaalaheena ee laga yaabo isu imaatinkan inay si kale u arkaan, dhammaanteed wada muslimiin baanu nahay, wada walaalo baanu nahay. waxayna midaynaya waxa weeye waa suubanaha alayhi salatu wa salaam maxabadiisa. waxaa marka loo baahan yahay inaanu walaalowno, inaan isjeclaanno, inaanu iskaalmayno,
maadaama ay kulushahay meesha culimmaduna ay badan tahay kelmadeyda waxaan ku soo koobayaa inaannu isu dardaaranno nafteenna iyo awlaaddeenna iyo ehelkeenna iyo muslimiinta dhammaantood nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maxabbadiisa iyo weynayntiisa iyo qadarintiisa si aannu u helno maalinka la qaawan yahay ee la kulul yahay ee la kurbaysan yahay shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam si aan darkiisa ugu arooro oo kuwa darkiisa laga fiijiya aanna u noqonin waa inaan nabiga jeclaannaa calayhi salaatu wasalaam taana waa inaynu ugu xambaartaa inaan waddadiisa iyo sunnadiisa raacno wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu